miyaha xisbiga Cudijinaar Faysal Cali Waraabe oo booqasho ku yimiday magaalada Looyacad ee ku taala xadka u dhaxeeya dalka Djibouti iyo Soomaaliland isagoona ka yimiday dalka Djibouti oo si uu soo dheendheeyo diiwaangelinta ka socota magaalada Looyacad iyadoona dalka Djibouti ay ka soo baxayaan dadkii ugu tirada badnaa goobtan Looyacad diiwaangelinta gudahaan si fiican bay u socotaa wanaagsan لكن واحد شرط اللي لا بد من شروط معين الكفية كل وحوي دمش وحد مجال أبو عمرنا يكتشي له كابواش تدوت ممكن تروح تدخل أدي أبو هواي مجانا ساين وسكيون قليو مركا وحيالا ما شاء إلا أفر حيالا أفر كبايا لها كم أفر تاكد وحوي قاربة مركب أشياء تقوى القرآن ويستعين waxaa loo baahan yahay in backup loo sameeyo kers marka in case ay noqdaan loo sameeyo loo baahan yahay qalabada waxa weeye waxa ku soo fatahay dad badan maantii la ku yiraahdo qolba imanaya qaar way seexanaya habeenkii waxa weeye booliiska control nidaamka laba qof oo qora ayaa ku soo tala gasheen laba qof oo control kara meel border waxay in ciidamada halkan joogay booliiska Looyacad jooga saldhiga iyagana hawlgelisaan وما يرسيسان أنت معناتها أنت شقيني واحد وشقيني نبي أفريقيا توم مع ولا شقيني لو ويك هنا أجلس $20 سيسان بهاد شيء يومنا وقاه والكلام لكن لو عسكري أو 24 hours شقيني يدي واحد عقلي كلام معها ما واحد له كوميشن وإنا كو باك أب كنا لما كان أنت حلي ويبقى حلي غيره كان بوليس كان هول كذي لو أفو بوليسي ويدالين وإكسوس بينهم عقلي كمان نشوف مجال وين عاصمة dadka soo jabiyo oo hayaan neer hayaan in laba askari umada kala celiso xalayta 400 baa seexday saaka 600 baa soo gaaro cusub saasi meesha uu buuxda marka waxaan leenahay hala soo tayeeyo hala soo kordhiyo booliiska hala soo kordhiyo qalabka hala soo kordhiyo wax aba oo hadii xumaato Kenya ana saay bedeli halkan leenahay sida kale aad u fiican nidaamka waxa kale oo shirka jaraa'id ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Uxud ee gobolka Salal Ibrahim Ramoole si fiican u socdaan imika waxay socdaan muddo 14 shan maanta u dambaysa waliba dadkii waliga arkaya waxa weeyaan kuyugi ma kala goon halka ay Djibouti dhinac walba dadku way ka soo qulqulayaan marka waxaan codsanaynaa in loo kordhiyo dadka muddada si ay dhamaantood u helaan warqadda bixinta inay helaan وأحمد إدريس فارح Somali Channel magaalada Saylac